مقعي شرفتيو قاموس القلايو عدني محتدي وقرا المشكلة ده لقى ما يدحو معه مقعي شرفتيو قاموس القلايو عدني محتدي kulantiha Bondhamaan badawada meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka salaamaha Royal TV oo idin ka imanaya magaalada Burco barnaamijkana waxa si toos ah idin socodsiin doona aniga Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Moto hadda waxa garabkayga taagan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye ku soo dhawow gudoomiye TV-ga caalamiga Royal bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr aad iyo aad u faahfaahsantihiin TV-giina maanta waa maalin farxad leh waa maalmaha maxaan ku dhahdaa ugu khayrka badan leh waa la maalintii maxaan ku dhahdaa waa ciid al-udxa shalaytana waa wuquuf al-arafa dadkuna wuu wada soomanaa xujaajtuna way inoo soo ducaynaysay ilaahay horta marka ugu horeysa ha inoo aqbalo dadka islaamka ah carafa shalayta ay taagnaayeen ducadii ay ummadda islaamka oo dhan u duceeyeen ducadii xujaajteenu ay dalkooda iyo dadkooda u soo duceeyeenba ilaahay ha inoo aqbalo waxa labaadka waxaan hambalyeeynaya bogaadinaya maalinta farxadda leh ee ciid al-udxa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kastoo ay joogaan gudo iyo dibadba waxaan leenahay farxad wanaagsan ku ciida ilaahay ciida oo sida nabadgelyada uu ciidnaha inoo sii siyaadiyo waxaan hambalyeeynaya ciidamadeena qalabka sida mar walba nidaamka inoo ilaalinaya waxaan ku dhahdaa iyaga iyo xaasaskoodana waxaan leenahay ciid wanaagsan waa maalin farxadeed waxaan leenahay ciid wanaagsan farxad ku ciida waraariya barwaaqo ayaan ilaahay ka baryeynaa ilaahay waxaan ka baryeynaa ciidda ku xigtana inuu nabadgeliyo iyo nolol wanaagsan iyo horumarin wanaagsan inaynu ku gaadhno nabad qabna ku gaadhno ciideedana sida maanta kale aynu si farxad loogu ciidno ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr daawadayaal wali waxaan ku gudbinaa barnaamijkeennii hambaliyada salaamaha ciid al-adha haatan waxa garabkayga fadhiya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Maxamed Faarax saacadatul wasiir ku soo dhaw barnaamijka ku soo dhaw TV-ga caalamiga Royal TV bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr waxaan halkan hambriye iyo salaan uga diraya dhammaan ummadda Somaliland iyo ummadda islaamka ah waxaa kaloon hambalyo u diraya ciid mubaaragna aan leeyahay dadka xoolo dhaqatada ah meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalaba waxaa aan aad iyo aad mar labaad ku celinayaa oon salaamayaa dadka ummadda Somaliland waxaan ilaahay uga baryayaa sanadaha badan ee soo socda inuu barwaaqo iyo bashbash inuu gaarsiiyo iyo caafimaad iyo horumar inuu ilaahayna u gaarsiiyo aad iyo aad baa mahadsantiin magaca Ibrahim Maxamed Xasan waxaan joogaa maanta magaalada Burco halkan salaam iyo hambalyo uga diraya dhammaanba ummadda islaamka gaar ahaan dadka afka Soomaaliga ku hadla meel joogaanba Somaliland ka sii mudnaatay burcaan joognaa ciid wanaagsan kullu caam wa antum tayibiin ilaahay sanadkiisa inoogu dhumid khayr qaba oo barakaysan tan waxa garabkayga taagan xildhibaan Waarg Yuusuf Cilmi Bidho oo kamid ah golaha deegaanka degmada Burco xildhibaan ku soo dhaw TV-ga caalamiga aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed inaan runtii aad fursadda siiso TV-gan Royal TV ama Burco Online ugu horeyn waxaan halkan ka hambalyeeynaa oo ka salaamayaa hambalyo ku saabsan ciidul adxa oo maanta ummadda muslimiintu meel kastoo ay joogaan waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa shacbiga reer Somaliland ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo marwadiisu iyo ciidamada qalabka sida iyo golaha deegaanka Burco saaxiibadayda golaha deegaanka Burco waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa oo halkan fursaddan kaga faa'iideysanayaa reerkayga iyo caruurtayda oo ku nool waddanka UK magaalada Birmingham waxaan kaloo salaamayaa oo marnaba aan runtii aan la ilaawi karin oo cidna aanan maartay aanan ku dari karin shacbigayga reer Burco meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay
hambalyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sanadka ciidda inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo waddankoo la ictiraaf kusoo dhow barnaamijka salaamaha iyo hambalyada ciidda magaca ku bilaabay maalinta weyn ee farxadda iyo ciidda dadka reer Somaliland waxaan aad iyo aad u hambalyanayaa inay ku ciidaan farxad iyo baraare iyo bashbash waxaana ilaahay ugu rajaynayaa inuu sanadka dambe sidaa ku gaarsiiyo insha Allah tacaala ayuu salaam ugu diray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland marwadiisa golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo dadweynaha sharafta iyo mudan iyo karaamada ee ku nool arliga Somaliland sida idina waa mahadsantiin Badr Royal TV daawadeen hadda waxa garabkayga taagan safiirka dalka Somaliland u fadhiya dalka Ethiopia Maxamuud Aadan Jaamac Galaal safir ku soo dhaw barnaamijka salaamaha iyo hambalyada ciidda ee Royal TV Salaamu calaykum marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland marwadiisa mas'uuliyiinta shicibka reer Somaliland meel kastaba ay joogaan daafaha adduunka waxaan leeyahay ciid mubaarak hambalyo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sanadkiisa inaynu caafimaad iyo nabad ku gaadhno ciid mubaarak ma hayaan hambalyada ciidda ee Royal TV bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waxaan hambalyeynayaa shacabweynaha reer Somaliland meel kasta ay joogaanba ilaahay waxaan uga baryayaa in ciidan ciid xigta khayr inuu gaarsiiyo inakoo isku duuban hambalyo waa bukar carab leeye runtii maanta waa maalin farxad ah oo ciid al-adha al-mubaarak muslimiintu ay faraxsan yihiin guud ahaanba muslimiintu waxaan leenahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay acmaashaha inaga aqbalo sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo halkan salaan runtii ka salaamay madaxweynaha jamhuuriyadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxda qaranka hooyada Saada Maxamuud Haariye xaaskayga Mulkhayr Cabdillaahi caruurtayda walaalahay dhammaan guud ahaan muslimiinta meel kasta joogaan saaxiibka Maxamed Mooto aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh garabkayga waxaa taagan gudoomiye ku-xigeenka hore gobolka Togdheer Maxamed Yuusuf Ubaxle ku soo dhaweey gudoomiye barnaamijka salaamaha iyo hambalyada ciidul adha ee Royal TV bismillaah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda gaar ahaan Royal TV waxaanan guud ahaan shucuubta caalam al-islaami guud ahaan waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan munaasabadda ciid al-adha awgeed waxaan leeyahay caalam al-islaami dhamaantii ilaahay sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumar ay nagu gaarsiiyo sidoo kale gaar ahaan shacabka reer Somaliland waxaan u dirayaa hambalyo gaar ah iyo dhammaan ubadkayga ehliyadayda asxaabtayda iyo inta aan odayga u ahaan jiray imikana aan ka mid ahay odayaashooda ee khaasatan reer Togdheer waxaan leeyahay hambalyo kullu caam wa antum bikhayr barnaamijka salaamaha ciidda iyo hambalyada ciidul adha ee Royal TV adoo magaca ku bilaabay magacayga waa Fawsiye Maxamed Xasan gidigin ma ciid mubaarak xanaan inanta ayayga wahaa Yaasmiin Cabdiraxmaan Sahra Xamdiya all the family gidigin iyo Somaliland dhamaantoodba aan salaamaya gidigood ciid mubaarak magacaga Saabiriin ciid mubaarak Saabiriin waxaan salaama ciid mubaarak waxaan salaama hooyaday aabahay haye ya ayeeyahay ya habeerahay صح ciid mubaarak bismillaahir rahmaanir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogto waxaan kuloo salaamayaa hooyaday aabahay waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay ciid al-caafiya ilaahay ciideeda hay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo Yaasiin Maxamed Axmed waxaan ku noolay magaalada Burco waxaan halkan salaan aad iyo aad u baaxad uga gaarsiinayaa hooyaday oo aad u jecelahay Leila Saciid Maxamed aabahay Maxamed Axmed Maxamed family-ga ayeeyooyinkay aydooyinkay abtiyaashay meel kala joogan walaaladay oo meel walba ku nool waxaan aad iyo aad u salaamayaa asxaabtayda aadka u qaaliga waxaan leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak magacayga waa Ismaaciil Cabdillaahi Jaamac waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta adduunka meel ay kaga nool yihiinba khaasatan waxaan aad u salaamayaa dhammaan bulshooyinka reer Somaliland oo leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr magacayga waa Leila Saciid Guuleed halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda reer Somaliland waxaan aad u salaamayaa hooyaday Sahra Cali Cabdillaahi iyo walaaladay waxaan kaloo salaamayaa caruurtayda waxaan kaloo salaamayaa odagayga Suldaan Cabdisalaam Maxamed Jaamac waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta ay joogaanba madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland marwadiisa Amna Waris
iyo dhammaan wax laaliya waxay ummadda muslimiinta meel kastoo joogaanba inuu salaamaya maalinta yom faraxa ee ciid al-adxa waxaan kaloo salaamayaa bahda TV-ga Royal TV waxaan leeyahay sanadkiisa ku ciida hambalyo odayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka salaamaha ciid iyo hambalyada ciid al-adxada haatan waxaa garabkayga taagan wariye Cabdistaar Safro ku soo dhawaal barnaamijka aad iyo aad baad mahadsan tahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair baan leenahay dhammaan muslimiinta adduunyada ku nool oo dhan waan salaamayaa waxaan aad u salaamayaa hooyaday iyo aabahay iyo guud ahaanba xaaskayga iyo carruurtayda waxaan salaamayaa cid kasta oo i daawanaysa waxaan salaamayaa waan ilaaway oo ugu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa iyo guud ahaanba madaxda qaranka golayaasha inta xanuunsanaysa ee bugta ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay caafiyo guud ahaan ummadeena waxaan u rajeynayaa nabadgelyo iyo caafimaad iyo inay sanadkiisa ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo magacaygu waa Siciid Cabdisalaan Maxamed waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan halkay ka joogaan daafaha dunida waxaan ugu horeysiinayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo waxaan ku heshiilayaa marwadiisa waxaan ka salaamayaa hooyaday aabahay walaalahay ilmaabtiyaashay ilmaadeerayaashay iyo dooyinkay iyo habrahay iyo ayeeyooyinkay halkan ka salaamaysaa maanta madaxweynaha iyo dadka muslimiinta iyo marwadiisa iyo hooyaday aabahay walaalahay habaryaraha iyo ayeeyooyinkay iyo dooyinkay iyo abtiyaasha iyo adeeraday حلده عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك أدونا الحمد لله رب العالمين السلام يا أمة مسلم كمال كستي شوغان قارهان أمة Soomaaliland السلام يا مدحونا جمهورية Soomaaliland المودي سكوبات الله عيد مبارك هذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا دمان أمة الإسلام كمال كستي الدنيا كشوغان أنا صاحبك محمد حسين إسماعيل محمد موتو آدم عبد الكريم آدم قرشو هذه السلام يا دمان بإسلام كا عيد مبارك بان ليه عبد الرشيد الحاج عبد الرشيد هل كلمات تتكلم الله يتفرق السلام يتكلم أباها ويبا أبا ويدي يا ولا عليه حل ذي حل ما عيد مبارك عيد العقل ولا البرنامج كسلامها عيد الأضحى الرويال تي في أضم مقعد بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وقدن عبد الله عبدي لما سلام يا مدة إسلام كمل كستي شوغان كل عام وأنت بالخير عبد الله وحنا السلام يا دمان مدة مسلمين تا waxaan ugu hambaleynayaa munaasabadda ciid al-adxaa sidoo kale waxaan ka salaamayaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo waxaa kaloo aan salaamayaa oo si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo iyo dhammaan shacabka Soomaaliland siba shacabka reer Togdheer reer Burco xamsi maanta ka ciid mubaarak xamsi hooyaya baahay maxaad leedahay عيد مبارك عيد العافية علينا صفا عيد مبارك عيد العافية ما هلك يتكسر سلام سمانتها هو يدي يا باي حل هذا عيد مبارك عيد العافية حمد هلك أبايا عيد مبارك عيد مبارك تيسير عيد مبارك عيد العافية كيف سلام سمانتها هو يدي يا باي يا إيدياشي هبيرها يا إيدويلك بسم الله الرحمن الرحيم مقعد حسبان محمود أحمد وحالا كسلام يا دمان فاميليجيجا أصحابتيدا يا دمان شعب رئيس Soomaaliland مدحوينها Soomaaliland وحنا سيجارة وسلام يا مدحوينها قرن أحمد محمد سيلانيو وحنا سيدو كلا سلام يا عيد ماذا قرن كجمهورية Soomaaliland يا شعب رئيس Soomaaliland وحلا عيد العام كسودو برامج كسلامها يا همبريد عيد الأضحى الرويال تي في السلام عليكم مقعد عبد الله علي حسين عيد مبارك بان وانتم بخير كل جيم بقى دنيا الإسلام كودن عيد برعان كعيدنا برواقه يروب عيد وناك بان هلي وكاس عيد محيك جدا عيد هروح جدول تيوحن هلي روب يرو أدو قبو ومقالة دي تشي يضطيو عيد يو قروح بدن عيد هرب ما نشوفين لكن تي في كان كداوني يو haddana way fiicneed way ka wanaagsantahay tii hore dumasan guud ahaanba waxaan intaasi ku saafmarnaa barnaamijkeena salaamaha ciid oo idinka imanayay magaalada Burco barnaamijkaasi waan idin daadinay anigu waa Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto tan iyo inta barnaamij noocan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maalin
mushkilada